waa tahay saaxiibada Facebooka live-ka igala soconaya isku dayo dhowr oo aan sameynay si toosa ay shaashada uga soo muuqato walaasheen Fartuun Qalbi Dhagax nooma aysan suuro gelin hase yeeshee hadda cod ahaan ayay noogala qayb geli doontaa inay ka qayb gasho barnaamijkan kooban oo aan uga hadlayno walaalkeen Cabdikariin Qalbi Dhagax oo loo dhiibay dowladda Itoobiya isla markaana isagoo hoos harsanaya calankii iyo qarankii Soomaaliyeed ee uu wax ka difaacayay loo gacan geliyay dadkii uu ka difaacayay Fartuun ayaa iminka qadka ku jirta ima suuro gelin inay shaashada ka soo muuqato isku dayo dhowr oo aan sameeyay balse waqtiyo kale ayaan shaashada ay nagala soo muuqan doontaa Fartuun may maqashaa waa tahay dadka qadka ku jira iyagana waxaan ka codsanayaa Fartuun hadday maqlaan inay noo soo qoraan waan maqalnaa Fartuun ma la maqlaa Fartuun hallow Fartuun waxaa si toosa laga dhageysanaya Facebookgayga waxaan jeclaan lahayn bal horta ugu horeyn inaad noo sheegto qofka uu ahaa aabbaha Cabdikariin Qalbi Dhagax oo dhawaan loo gacan geliyay ciidamada Itoobiya bal aabbaha qofku ahaa noo sifay bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee live-ka anigu waan ka cudur daaranayaa in badan baan isku dayay inaan live ka soo galo laakiin se ii suurtoobi weyday dhammaan horta marka horeysa ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaashii Fartuun Cabdikariin oo u suurtoobi weyday inay muuqaal ahaan idin soo hor fadhiisato cillad farsamo awgeed balse cod ahaan idin soo gudbinaysa haddii aan walaal ku sheego aabbahay wuxuu ka mid ahaan jiray ciidamadii dalka soo difaacay ciidamadii 77 generaal wuxuu ahaa ciidamadii Soomaaliya ka mid ah dalka iyo dadka iyo diintana difaaci jiray calankana dhuuxiisa iyo dhiiggiisa u soo daadiyay in badan ciidan u ahaa oo ka difaacay cadowga hadda gacanta loo geliyay burburkii wadankeena 91kii ayuu aabba ka laaftay dalka Soomaaliya wuxuu taagay gobolkan Soomaali galbeed marka inuu sii wato heshiisii halgan Itoobiya ka noqday wadaniga xoreynta ogaadeen ee ka dagaalanta Soomaali galbeed ilaa 91 ilaa haddadan aabba wuxuu ka mid ahaa ururka wuxuuna ahaa xubin ah golaha dhexe ee jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ma uusan ahayn dambiilaha aabbahay ma uusan ahayn wadanka ma uusan khaaimino ma uusan ahayn dambiile wuxuu ahaa muwaadin dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa u dhaartay daaficayna loo qabtay aabe maxaad nooga sheegi kartaa ogtahay Fartuun wallaahi walaal aabe muqdisho joogay 3 sano u dambeysay reerihiisu deganaayeen dhammaan aabahay carruurtu dhalayna waxaan ku wada dhalanay Soomaaliya inkastoo anigu hadda Soomaaliya joogin laakiin Soomaaliya aan ku dhalanay waxaan ku baranay aab 3 sano u dambeysay halkaas ku noolaa habeenkii talaadada bishii 8 soo dhaafnay 22deedii uu ka baxay magaalada Muqdisho asagoo u kacay magaalada Gaalkacyo gaalkacyana wuxuu u raadiyay wiil yar oo adeer yahay adeerkay dhalay oo xanuusnaa ayuu rabay inuu soo qaado oo dhakhtar u soo qaado 22dii bisha habeenkii arbacada soo ka duulay oo Gaalkacyo tagay habeenkii 23 bisha ahaydna waxaa lagala baxay hotel uu jiifay oo ku yaala magaalada Gaalkacyo waxaa markaas gacanta uu galay ciidamada Galmudug
dhinacan soke gaalkacyo ciidamadaas waxay hayeen 3 maalin maalinta habeenkii ay la baxeen arbacada waxaa subaxii waana loo soo sheegay in maalintii oo dhan meel aaba la geeyay waan weynay waa la raadinayay habeenkii xilli dambe markay tahay baan ogaanay inuu ku jiro stationka galmudug ee gaalkacyo subaxii khamiista waxaan nasiib u helay in uu aaba layla soo hadashiiyo oo wiil la joogay uu taleefanku igu dhiibo aaba markaan codkiisii maqlay runtii dee waan isbedelay aabahay oo ahaa mas-uul aad u weyn ognahayna maxaan ku idhahdaa barta uu maanta kaga yaala Ethiopia hadday maqasho Cabdikariin ama qalbi dhagax inay maxaan ku idhahdaa dhammaanteed barta ay fadhidaysa ka dhaqaaqaynin oo maxaan ku idhahdaa xiran yahay shucuur aad u weyn baa runtii aan dareemay aaba markuu ila soo hadlay waan ooyay aaba waxba ha ooyin buu yidhi waxa gacanta igu haya buu yidhi hadday yihiin dowladda Soomaaliya oo ay farmaajiya khayra yihiin alxamdulilah buu yidhi wax dhib ah iyo wax kaleetana ma filanayo maxaan ku idhahdaa waa alxamdulilah dowladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed gacanta ugu jiro aaba saasaa loo soo qabtay subaxii jimcahana waxaa la keenay magaalada Muqdisho kadib Muqdisho markii la keenay maxaa dhacay muqdisho markii la keenay walaalle maana warkii helin adigu dad baan la xidhiidhinay ehelada oo muqdisho ku sugan aaba wax warama ka haysaan baan dhahnay waxay dhaheen wuxuu ku jiraa xabsiga nabad sugidda loomana tegi karo lamana booqan karo taleefoonadii waa laga xiray ehelkii waa loo diiday inay arkaan adigu muddo 3 maalin ah oo subaxii jimcaha la keenay sabtidii iyo axadii aaba cid aragtay ma lahayn subaxii isniinta waxaa laga dhoofiyay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyadoo la sii mariyay magaalada Baydhabo halkaana laga qaaday diyaarad military oo lagu geeyay meel fartuun inkastoo codku qaybihii dambe kaa googo'ayay waxaa jira warar dadka qaarkiis ay faafinayaan oo lagu sheegayo Cabdikariin qalbi dhagax inuu wada hadal la galay Ethiopia isaguna si volunteer uu Ethiopia isugu dhiibay dooda caynkaas ka waran والله ولا لهرتا وين أركي وابا قرية وابا كانوا حاني كرا وابا معارضة أما وحن واحد سمية بروباغندا أنا دولة الصوماليات فرماتي خير مركي كوك عن أمد الصوماليات بشر الصوماليات مظاهراتي محن كل هذا إن دلك سيد دافعي أنت قبتين على كي أودا وعمل بحوش ولا جوه سبيتو بيلوك عنجلي بشر الصوماليات كوك على فرماتي وين اللي وضع صعنا دولة الصومالية حيكب قضي إن أي جنتو إن oo maxaan wada farmaajiye khayradda mid loo qabsaday waxay damceen sir ayaga iyo Ethiopia ay isla qaateen oo ay bulshada Soomaaliyeed maxaan ku fadhiisinaa waxay dhaheen aan dhahno Cabdikariin wada hadal baa u soo ayaga Ethiopia tusaale ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan bal tusayaa aabahay hadduu Ethiopia u socdo intuu ka duula aadan cadde airport يكديلا أسأبا متكتير هادو أوبا الصعدو يعني محان كل هذا دور iyo 50 sano muusan soo halgameen dhiigiisii dhuuxiisana oo ma daateen inuu dalkiisa difaaco teeda kale aabahay waxaa la dhashay 40 iyo dhowr ilmood iyo waxay sii dhaleenba Ethiopia in xabsiyada hadda ugu jirta iyo in ay laysabeen noqdeen intaas intaysan ama dhimanin ama la xidhin oo aabahay Ethiopia u teela haduu tayo wada hadal la sameeyo teeda kale hadda waxaanu la wada soconaa Ethiopia in qoomiyad isu dagaalayso Ethiopia ayadii hadda inay duntada ay qarka u saaran tahay ninka intaas oo sano 50 sano iyo dhowrka soo halgamayay maanta Ethiopia kala tagaysa ama burburtay inuu isu dhiibo ummadda Soomaaliyeed aqlin teelag bay galaysaa teeda kale haduu aabahay Ethiopia isu dhiibay waxa loo maxbuusay oo lugaha iyo gacmaha intii silsilada looga xiray wajiga waxa madow loo galiyay as'aab looga dajiyay روح إلا مير السعودية يروح لقرطو إسكو مد مع حاجة الحياة الله صافدو يهدو السعودية. waxaa kaloo jira in la baraha bulshada dukumeenti go home ama ku laabasho dalkiisa looga dhigayo oo safaaradda Ethiopia Muqdisho ayaa bixisay la leeyahay oo sawirka aabaha uu saaran yahay laguna sheegayo in uu yahay muwaadin Ethiopian
horta taas waa been waana barmiinta uu leeyahay horta magaciisa saddexan kuma usoo qoranin baasabood ama sharci uu leeyahay weliga cabdikariin ama qalbidhax kuma qoranin waxaan la soconaa baasaboodkan waxaan beentaa waa la isku kakabay aabahay markuu dukumentiga dhan wada jartay shakhsi aad u yar buu ahaa hadda sawiraantan sawirka ku dhegan bahalkan baasaboodka la leeyahay cabdikariin baa iskale Itoobiyaanka la leeyahay waxaa la soo gooyay sawiradii markii uu gaalkacyo joogay ama muqdisho ee laga qaaday oo fanaanada cas uu qabo sawirkiisa intii laga soo gooyay kurka ayaa lagu dhajiyay sawir wax kale photoshop lagu sameeyay sidaa daraadeed baa meesha loogu dhajiyay wuxuuna qalin baa lagu sameeyay ma aha baasabood kuman qof walba oo damiir loo aqli leh oo wadani aan ugu dareemi karaa waxaan wax gacan ku sameeyay inuu yahay aabahayna weligii baasabood Itoobiyaan aad tiriye Itoobiya aabay ma tigin mana arkin meel baasabood laga jartana weligii ma begelin baabahay wuxuu ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo marna Soomaaliya maada marna jamaacadiisa ka dagaalamo gudaha u kaca waa gartay marka aabaha weligaa ma qaadan jinsiyadda waddanka Itoobiya ma qaadan marnaba muusa qaadan marka hadafka cabdikariin qalbi dhagax wuxuu ahaa dhulka Soomaalidu ay degto Itoobiya inuu ka xoreeyo Itoobiya horta waddanka Itoobiya lama dhaho ummadda Soomaaliyeed way nala wada soconaa gobolkaas inuu kamid yahay ogaadeen sida maabka ugu wada jirta marka inaynu tahano waddanka Itoobiya waa qalad inuu u dagaalamayay rabaa Itoobiyada xoog haysatay inuu ka kaxeeyo ilaa 77 dagaalka uu ku galay kama uusan tanaasulin ilaa dir dhabiye jigjiga inuu qabto kama uusan tanaasulin tiibuna watay maxaa dareentay markii uu ku soo gaaray warka ah in aabaha isagoo ku jira gacanta dawladda Itoobiya ay ku wareejisay gacanta dawladda Soomaaliya isagoo ku jira in lagu wareejiyo Itoobiya warkaas markii uu ku soo gaaray maxaa dareentay wallahi walaal adoo waa arki kartaa waa dareemi kartaa waxa dareemayso ummad Soomaaliyeed dhan baa wada dareentay aniguna waxaan dareemay runtii wax aan filanaynin oo maskaxdayda aan marnaba qaadanaynin baan dareemay waayo anu farmaajiye khayro iyo xukuumadda hadda joogto waxaan ka haystay fikir aad u weyn oo ah Soomaalinimo iyo Soomaalidii 28 ilaa 27 sano kala maqnayd baa dib isugu soo noqotay anigu waxaan dadkii u taageeraha badnaa farmaajo markii uu xilka soo galayay ee doorashadiisii campaign-giisii dadkii u horeeyay maxaan ahaa dadka anigu abaabuli jiray maalintii la dooranayay wallahi dhowr jeer baan ilmeeyay oo markii wareegii hore waa tii laga hormaray wareegii hore markii aan arkay baan xaruntii iyo jabay wareegda markuu soo galayna ilaa maalintii la doortay 3 beri oo kale aan dib u sii socday oo maxaan ku dhahday mudaharaaday oo dadkii aan dhahayay kaca madaxweynaha baa soo galay markuu khayro soo doortay ee xukuumadda cusub Xuseen aan dhahay Soomaaliya dib ay isugu soo noqotay fikir waxaan ka haystay runtii Soomaalinimo inay dib isugu soo noqoto shanta Soomaaliyeed la isku soo celiyay balse abarjab aad u weyn baa naga nagu dhiftay naguna keenay kamana filanaynin taas waayahay marka maxay tahay fariintaada aad dadka Soomaaliyeed rabtay inaad la wadaagto fariintayda dadka Soomaaliyeed wadaagayo waxay tahay aabahay wuxuu ahaa wadani Soomaaliyeed dhiiggiisa iyo dhuuxiisana u soo shubay calankan maanta laga hoos kaxeeyay laga afduubay aabahay oo silsilada ay kaga xidhan yihiin lugaha iyo gacmaha laga hoos qaaday diyaaradna laga saaray asaga u soo dagaalamay asaga inta soo gaarsiiyay maanta meeshii dhiig iyo dhuuxiisa ku daadiyay oo caasimada dalka aabahay laga afduubo runtii waa wax laga xumaado farmaajiye khayra ku dhaqaaqeen iyo sambaloshe waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed aabahay wadani buu dalka u soo dagaalamay idinku idin rabay inuu horumar idin gaarsiiyo ilaa maalintii uu yaraantiisii qoriga qaaday waxaan rabaa ilaa aabahay meel ka ogaataan inaan dhaafin mudaharaad iyo waxaad wadaan ilaa farmaajiye khayra ay idin ka cadeynayaan inay cabdikariin ay keeneen barti ay ka qaadeen inaad sii wadaan shucuurtiina wadaninimo iyo damiirkiina dhaqaajiseen inaad wadaan baan walaalayaal oo idin ka codsanaya farmaajiye khayra maanta ciyaar yar yar oo maxaan ku dhahdaa mustaqbal hiigsanayay oo ka ugu yar uu sanad jiro maxaan ku dhahdaa aabalaan ka dhigeen mustaqbalkoodii ka indha tireen waxaan rabaa farmaajo iyo khayray la xisaabtantaan cabdikariin dhaadaan bartaad ka qaatay keen inayna mudaharaadka iyo damiirkiina dhaqaaqa ina joojinin baan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed kula dardaarmaya
waxaa la baahiyey muuqaalo baraha bulshada lasoo dhigayay oo lagu sheegayay ama dad kala duwan fiidiyoyo laga duubo la leeyahay cabdikariin qalbi dhagax ayaa nagu dhibaateeyey gudaha waddanka Ethiopia muuqaaladaasi ma aragtay wallahi walaal horta taas waxay ahayd waa bahdilka aabaha la rabo in Ethiopia iyo Soomaaliya ay sheekadan wada gaadheen oo leeyihiin dadkii shacabkii Soomaaliyeed baa kacay maxaynu kaga hortagnaa in Cabdikariin maxaynu ku sameynaa waxay dhaheen dad bay soo aruuriyeen wayna ognahay gobolka xasuuq iyo dhibaatada iyo dhibka ka socda wayna la wada soconaa qof maanta fikirkiisa si fudud ama si fiican u dhiban kara kuma jiro guryaha jigjiga ku wada yaala dadku way wada ooyayaan damiirkoodii baa wada dhaqaaqay qof asagoo ilin la banaanka u soo bixi karana malaha ilinta guriga dhexdiisa ay ku dhamaysteen dadkii noocaaba intii loo imaaday baa qoryo dhafooro laga qabtay yaa la dhahay idinkaa faamilkii Cabdikariin iyo bartu ka soo jeeday waa inaad hadashaan dhahdaan Cabdikariin wuuna xasuuqay si dowladda Soomaaliya ay u badbaado iyo waliba dowladda Ethiopia Cabdikariin dambiilo dambi uu naga galay taas waa Ethiopia Soomaaliya sheeka ay wada gaadheen weeyaan waana wax la rabo ummadda Soomaaliyeed damiir kale in laga hor istaago diiriga ay ka dhigiyeen diibitaanka Cabdikariin waana maxaan ku dhahdaa wax la rabo in shacabka Soomaaliyeed lagu fadhiisiyo taana waxba kama jiraan aabahay dambiilo ma ahan dambina ma soo gelin xaraynta dalkiisa iyo dadkiisu intaa ku soo gaadhay aabaha dabcan waad xiriiri jirteen intuu Soomaaliya ku noolaa 3 sano ee ugu dambeysay marna ma ku jirta cabsiyo walwal in dawlad Soomaaliya inta qabata Ethiopia u dhiibto may wallahi kuma jirin aabahay kuma jirin marnaba waatan ku sheegayaan ku idhi maalintii wala soo hadlay ee gaalkacay lagu hayay wuxuu yidhi haddaba dawladda Soomaaliya gacanta ay wayso alxamdulillah inay sii deysan xorriyadeeda dib u helayaan aaba filanayaa buu yidhi waxba ha murugoonina aabahay fikirka uu ka qabay runtii markii wala soo hadlo ee weydiiyo dawladda Soomaaliya wuxuu leeyahay barti ugu fiicnayd maanta Soomaaliya maraysa dawlad iyo madaxda daacada heshay Soomaali way isu timi Soomaali mid bay noqotay aabahay fikirkaas uu ka haystay isma ahayn marnaba maxaan ku dhalaay dawladda Soomaaliya dib kaaga imaanayso cadawgii aad 40 sano la dagaalamaysa gacanta ku gelinayaan marnaba aabahay muuse islahayn weligiis ma jirtaa mar uu Ethiopia wada hadal la galay may aabahay marnaba Ethiopia wada hadal lama soo gelin waayahay waxa dadka Soomaaliyeed baraha bulshada 48 saac ee la soo dhaafay si weyn ayay daroonkooda u muujiyeen arrintan uga gilgisheen sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya qaar badan oo kamid ah arrintan si weyn ayay dareen uga muujiyeen oo ay barahooda bulshada ku soo qoreen fariimo adag oo arrintan ay dawladda uga dalbanayaan inay jawaab ka bixiso dareemadaas oo dhan markii aad aragteen ma dareenteen in dadka Soomaaliyeed ama shacab ama xildhibaano ay idin garab taagan yihiin runtii aad baan u dareemay in aan garba leenahay oo ummadda Soomaaliyeed iyo xildhibaanadii dadka mas'uulka naga ahaa ee matalayay ay maanta danqanayaan runtii waan dareemay in ummadda Soomaaliyeed na garab taagan tahay nalala qaybsanayo murugada iyo dhibka aabahay loo sameeyay aabahay afduubka lagu sameeyay in shacabka Soomaaliyeed iyo xildhibaanadii mas'uuliyiinta Soomaaliyeed nala dareemeen waan ognahay waana uga mahadcelinaynaa waxaana leenahay ilaa aad meel ooga hubsataan damiirka aad kacdeen Cabdikariin inaan marnaba aynan ka daalin baan leeyahay xildhibaanada iyo shacabka Soomaaliyeed maxaa jeclahay laga yeelo kuwa Cabdikariin qalbi dhagax oo Soomaaliya Ethiopia u dhiibay ma fahmin halka igu soo celi maxaad jeclaan lahayd in laga yeelo kuwa aabaha Cabdikariin qalbi dhagax isagoo muwaadin Soomaaliya inta qabtay Ethiopia u dhiibay kuwa maxaad jeclaan lahayd in laga yeelo kuwa anigu hadaaban horta arki lahaa wallahi oo billahi oo waatallahi shabaabana qarxiye dhihi lahaayeen tooriban caloosha ka wada gelin lahayd inta guryahooda ugu galo ilmahoodii bay la farxeen iidi anaga sigeedi murugayno ayd waan ooyeynay aabahay maxaan ku dhahay godmado ugu galay farmaajo iyo maxaan ku dhahaa khayr markuu aabahay u dagaalamayay dalkiisa iyo diintiisa Norway iyo Mareykan bay ku raaxaysanayeen oo xabad oomaysan ridin aabahay u soo dhaawacmay dhuuxiisa u shilay oo shalay Mareykan iyo Norway ka kala yimid oo waxaan sanad dhannayn 7 bilood waxaan dhannayn joogay dalka inay aabahay dhiiggiisa dhacaankiisa u soo daadiyay gataan wallahi waa wax laga xumaado shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay laba nin oo shalay ka timid maxaan ku dhahay Mareykan iyo Norway oo 7 bilood waxaan dhannayn wadankeena la joogta
mujaahidkii usoo dagaalamaya 40 dhowrka sano inay gataan tamir xumi Soomaali lagu arkay baan leeyahay haddaan anigu arki lahaana dee aniga un baaba wallahi saan ka yeeli lahaa labadaa nin haddana waxaan leeyahay xildhibaanada Soomaaliya leeyahay labadaa nin ilaa aad waxaad ka keentaan ha kaga hadhina sidaas waayahay waxaan rabnaa inaad noo sheegto dadka qaarkiis ayaa jeclaanaya inay ogaadaan xaqiiqda qofka ila hadlaya inay tahay Fartuun Cabdikariin Qalbi Dhagax marka waxaan jeclaan lahaa si buuxda ilaa inta aad gaarsiin karto magacaaga iyo abtirsiyahaaga inaad noo sheegto si ay bal u xaqiiqsadaan inaad noo sheegtaan jeclaan lahayn ilaa iyo inta kaa suuragala Cabdikariin Sheekh Muuse Macalin Cismaan weeyaan waa gartay marka waxaad ii sheegtay intii aan isla hadlaynay ama waraysigan aan ku jirnay qaar badan oo kamid ah qoyskiina inay hore Itoobiya ugu xirnaayeen marka ma noo sheegi kartaa tirada ama magacyada inta qof ee qoyskiina ah ee sidan oo kale gacan Itoobiyaan galay tirada inaan ku sheego mooyaane magaca kuma sheegayo haye tirada bal ii sheeg hadda waxaa xidhan 6 qof waa gartay 12 qofna way dileen waxaan kaloo baraha bulshada ku arkaynay Cabdikariin walaalkiis oo adeerka ah Ibraahim inuu isaguna sidaas oo kale isagoo dalkiisa u halgamaya oo lugtiisa ku waayay aakhirkiina ku dhintay iyadana maxaad nooga sheegi kartaa sheekada adeerka Sheekh Ibraahim Sheekh Muuse Allah u naxariisto 7 buu ku waayay lugtiisa midig oo ka go'day bartaas looga korkiisa bowdada ay ka go'day ilaa maalintaas wuxuu ahaa naafo asagoo naafadii ayuu ka tanaasulin inuu asna sii watay halgankiisa gobonimo doon ugu dambeyn wuxuu ku dhintay gacanta Itoobiya intay ka afduurtay magaalada Wardheer ayaa waxay geysay Jigjiga waxay ku dhex dishay jeelka madoobe jeeloogaade la dhahay Jigjiga ku yaalay dadka lagu ciqaabo waa gartay marka sidaas uu ku dhintay jeelka dhexdiisa ku dhintay jeelkay ku dhex sumeeyeen sunba cirba sun ay ku dureen waa gartay hadda tan iyo intii Itoobiya la geeyay aabaha Cabdikariin Qalbi Dhagax oo muwaadin Soomaali oo Soomaali oo dhan ka wada maqan oo ay dareemayaan maxaa lagu sheegay Itoobiya gudaheeda meel la geeyay iyo xabsi la geeyay ma lagu sheegay may waxna loo sheegay malaa in maxaan ku dhahdaa halka laga dajiyay baa loo sheegay taada kale waxaana loo sheegay diyaaradda aaba lagu qaaday ee lagaga qaaday Baydhabo inuu la socday ninkan gudoomiyaha banaadir ka ah ee Taabil Cabdilla Dhoo inuu raacay kana raacay Baydhabo ilaa iyo bahalkii adan uu la socday markii dambana uu ka soo noqday baa loo xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ka wada ninkaas la socday aabahay oo sagoontiyo bartaa geeyay marka ma wuxuu ku lug lahaa baad aaminsantiin arrintan asaga iyo farmaajo Sambalooshe iyo khayra 4 nin iyo maxaan ku dhahay taliyaashooda in la taliyaasha ka wada hooseeya shuqulkan bay wax ka wada ogaayeen 4 nin ee Muqdisho ugu waaweyn baana shuqulkan soo maleysay ninkaana waxaa noo saacadeeyay dadkii ka ag dhawaa inuu aaba kaxeeyay sidana soo laabtay barta waa gartay marka hadda dawladda Soomaaliya tan iyo markii Cabdikariin Qalbi Dhagax ay Itoobiya u gacan gelisay arrintan kama aysan hadlin aamusnaan ayay ku jirtaa warar kala duwan ka soo baxaya xafiisyada madaxda dawladda idinku marka qoys ahaan maxaa dawladda aad weydiisanaysaan ama aad u sheegaysaan dawladda Soomaaliya waxaan la weydiinaynaa sida aaba loo dhiibay siday u dhiibtay iyo waxay ooga aamusantay ooga jawaabi laadahay dhiibitaankii waxay ooga hadli laadahay qorshay u dagaysaa ay rabtay inay dhahdo Cabdikariin hadda waxyaalaha soo baxaya sidan Cabdikariin asaga wada hadal Itoobiya kula jiray iyo baasaboordyada samaysay qorshaha maxaan ku ka soo fakatay oo dad u dhowba soo fashilay laakiin qorshe kale dagaysaa waxay la aamusan tahay annagu aan ognahay marka dawladda Soomaaliya waxaan leenahay ka hadasho dhiibitaankii aabahay marka waxaad sidoo kale wararna soo gaaray sheegayaan inay suuragal tahay in gudaha Itoobiya Cabdikariin Qalbi Dhagax saxaafadda loogu soo bandhigo ama muuqaalo laga soo duubo isagoo sida hadda dadku dareenkoodu yahay si ka duwan u hadlayo sheegaya inuu isagu iskiis halkaa u tagay haddii ay taasu dhacdo maxay noqon kartaa
سؤال قف محبوسة صحافته محن قول على بحيك قبطة قف محبوسة ولا جدلي أو حران تكلا أنا فكرة وحن قباء أما بالشدة قبطة صوماليات جيت جاي أباي تقنا عبد الكريم شيخ موسى أو محن قول على فيو وعبد الكريم كلا يقنا يا انتو سوي استغلتي في أما إذا على التوب يلا هاي إنه سنمرنا بوسده هينين waxaan ku dhahdaa Cabdikariim baan ahay ana is soo dhiibay marna aabay kama suurta galayso geeribu ka xigay gudmada oo la galiyay mooyaane marnaba inuu idaacadii TV Ethiopia leedahay asagoo kuman dayay intay wax ku durto ilaa dadka way durtaa Ethiopia anagu aan la soconnaa anaga inta maxaan ku dhahdaa oo qorshaheeda Ethiopia dadka waxay ku durtaa cirbado dadka ka hadashiyo oo waala oo maskaxdooda isdaamirsiya inay tahay intay ku durto maxaan ku dhahdaa aabay ay kaga hadashiisa mooyaane horta Cabdikariim oo kuman oo damirkiisu nool yahay inuu samarnaba ka leeynin baa dhacaysa shacabka Soomaaliyeedna taasaan u sheegayaa maxaan ku dhahdaa Ethiopia qorshahay maadantay waan maqlaynaa maalmaha inay soo wadato laakiin aabay inuu dhinto mooyaane xataa haddii aabay jidil ay ku dhufato ay dhacdo hadal inuu saadaynin bay la tahay inay durto ay waxyaalo sun iyo wax kale ku durto mooyaane caruur yaryar baad ii sheegtay inaysan ciidan iidin oo ay musiibadan la murugaysan yihiin marka ma qoys yar baa jiray oo aabe kula noolaa Muqdisho aabe saddex xaas buu lahaa saddexdiisii xaas laba xaas Soomaaliya deganayeen anaga mooyaane waa gartay marka caruurtaas iyo idinka iyo dhammaan qoyska reer qalbi dhagax ciidan dadku meesha ay ka dabaaldegayeen idinka muruga idiin ahayd muriga iyo ooyin bay noo ahayd oo guriganaga kama aanaan bixin waxaa noo taalay taasi aabba anagana adduunka ugu jeclayn baa maxaan ku dhahdaa ifkii laga qariyay ciidii rabadaan aabba habeenkii ciid ahayd ciid wanaagsan buu intuuna soo wacay maxaan ku dhahdaa lacagiyo wax walbana noo soo diray bi aabba la ciiday ilmaha soo maxaan ku dhahdaa ciidayo la farxa laakiin ciidan murugay noo ahayd farmaajo iyo khayr dambigooda maxaan ku dhahdaa Allah ciqaabo ciidi geliya labada nin baan ciqaabtay waa gartay ugu dambeyntii anigoo ka cudur daaranaya inaan kugu dheereeyay ugu dambeyntii dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku daawanaya qaarkood ay mas'uuliyiin dawladeed yihiin qaar badan oo ay shacab yihiin qaar kalena ay dib kaaga sii daawan doonaan bartayda ama baraha kale ee bulshada muuqaalkan qaata maxaad dhihi lahayd waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiintaba horta sida ay aabay u garab istaageen shucuurta ay muujiyeen aad bay ugu mahadsan yihiin waana tu loo baahan yahay qofka halgamaaga maalintu adiga ku halgamayo adigu ku difaacaya laakiin maanta kale waa maalinta adigu difaacina garab uu kaaga baahan yahay waayo waa maxbuus lugaha iyo gacmaha laga jeebeeyay afkana laga sharooteeyay ma uu hadli karo aduu maanta hiil kaaga baahan yahay xildhibaanada Soomaaliyeed waxaan leeyahay maalinta aabay dalka difaacayay waxaa laga yaabaa in iska dayaraayeen haddii qaarkood ciidamada iska kala mid ahaayeen maalinta idinku rabay horumarkan aad maanta gaadheen inuu idin gaadhsiiyo marka waxaan leeyahay aabbahay horumarkan idin soo gaadhsiiyay inaad xildhibaano ka noqotaan wadanka inaad difaacdaan codkiina aad ku difaacdaan intii aad wax qaban kartaan oo qabataan baan leeyahay aad u mahadsantahay Fartuun aad mudan walaal salaamu calaykum